Ladies and gentlemen, waa idin salaamo videogan waxaan ugu tusi doonaa markaas sida loo sameeyo portfolio WordPress website. Haddaba kani markaas waa website-ka aan samayn doono sidan ayuu u egyahay. Website-ka aan samayn doono markaas waa portfolio website. Haddaba website-kan yaa samayn karo. Website-kan waxaa samayn karo qof walba markaas oo beginner oo markaas aqoon guud aan lahayn oo ku saabsan website samaynta. Haddaba markaas intay koorsadaan socoto waxaad awood u yeelan doontaa marka website noocan ah u bartiistayn markaas inaad samayso. haddaba website-kan waxaa ujeedaa qaybta homeka oo kale markaasi in wejiga hore markaas aan kusoo bandhigayno waxyaabaha markaas portfolio website laga rabo sida markaas waxaa arkaysaa projectyada qofka sameeyay awaadis ku helay shaqooyinka uu qabtay testimonials waxyaabahaas dhan markaas inuu leeyahay sidoo kale pagesna inaad markaas uu leeyahay pages sida work about us iyo sidoo kale markaas services iyo prices pages lamid ah iyo contact us haddii marka mobile laga soo galo website-keena sidan ayuu u egyahay dadka mobile-ka haysta markaas markay ka soo galaan sidan ayuu ugu soo muuqanaa design-kiisa waxaa ujeedaa weli inuu markaas qurxaya uusan waxba isbedelaynin haddaba marka si aan website-kan u sameyno waxaan isla fiiri doonaa markaas waxyaabaha tallaabooyinka aan qaadi doono ama waxyaabaha markaas aan sameyn doono si aan portfolio WordPress website u sameyno sidan oo kale ah haddaba inta koorsadaan ee socota waxaan arki doonaa markaasi marka koobaad sida loo helo markaasi domain name iyo web hosting soo domain name iyo web hosting wax kale maaha waa magaca website-kaada sida hebel.com hosting-kun waa meesha faylasha website-kaada ay ku host garaysan yihiin haddaba waxaan arki doonaa labadan waxyaabood si loo helo markaasi loo iibsado marka xigta waxaan arki doonaa markaas template diyaarsan sida loo soo import garay oo waxaan ku tusi doonaa markaas website-kan shaqadiisa oo dhan ama markaas inaad asigoo dhanba markaasi aad ku dhisi doonto website-kan saacado gudahood waxaan adeegsan doonaa markaas template diyaarsan aan waxyaabo yar yar ka badbedelayn soo marka waxaan arki doonaa si loo soo degsado ama loogu soo shubto template diyaarsan oo portfolio ah marka saddexaad waxaan arki doonaa markaasi marka template kala soo degto markaas sida pageska sida homeka about us iyo work iyo prices sida page markaas loo abuuro soo markii aad page-ka markaas abuurto waxaan kaloo arki doonaa markaasi marka xigta sida loo bilaabo dhisitaanka website-ka waxaan arki doonaa sida loo bilaabo dhisitaanka homepage-ka sidoo kale waxaan arki doonaa sida contact us-ka iyo about us-ka surface-ka dhammaan page-yadaas markaas dhammaan pageskaas markaasi loo dhiso sidoo kale markaasi website-kan dhisi doono markaas wuxuu noqon doonaa mid marka dadka haysta mobile ama dadka haysta tablet ee caadi u soo access galayaan ee website-kana markaas si fiican ay ula socdaan markaas uu si fiican ugu soo muuqdo soo haddaba marka website-kana xawaarihiisa wuxuu noqon doonaa markaas mid aad u sareeyo soo haddaba istaabyadaas intaasi inkasii dheer ayaan qaadi doonaa markaasi oo waxaan arki doonaa markaas sida loo sameeyo portfolio WordPress website soo koorsadaan gudaha inta socota haddii markaas aad wax su'aalaha qabto ama haddii markaas meel colaad ay kugu adkaato waan soo weydiin kartaa soo markaan isla daawano markaasi muuqaalka oo dhammaystiran ama koorsada oo dhammaystiran soo step koowaad markaas waxaa arki doonaa sida loo helo markaasi domain hosting soo marka hore san domain hosting u helno waa maxay domain hosting waa magaca website-kaada sida hebel.com sida bbc.com oo kale hosting waa meesha website-kaada uu ku host garaysan yahay soo saan u helno waxaad furaysaa tab cusub kadibna waxaad tagaysaa webdisa.com/hostigator soo website-kani waa linkiga markaas aad ku dhufanayso waa kana ama aad tagayso si aad markaas discount ama qiimo dhimis wanaagsan aad u hesho sidaan ayaad u qoraysaa google haddii kale linkiga markaas waxaan dhigaa qaybta description-ka ee video-gan ku dhufo soo markaas sidaas u qorto waxaa dhahdaa marka enter ayaa leedahay soo marka saa ujeeda wuxuuna keenayaa meeshaan oo ah markaasi hostigator waa shirkadaan ka iibsan doono hosting and markaasi domain waayo hostigator waa shirkadaha badanaa markaas aan adeegsado aan ka iibsado soo waxaad helaysaa markaas waxaad ka helaysaa sida meelahan ku qoran ay sheegayaan markaas support 24/7 ahaan oo mar walba wax walba cilada ku qabsato support ay ka siinayaan sidoo kale inta badan domain hosting-kooda aad qaali uma aha markaasi soo marka si aan u bilaawno waxaad ku dhufataa meeshaan ay ku qoran tahay get started ku dhufo get started marka aad ku dhufatid waa kana marka saddexdan balan ayuu ku siinayaa hajin balan pay balan iyo business balan saddexdan balan mid ka arabta ayaa ka dooranaysaa balankan koobaad ka soo qaad waxaad ku dhis kartaa ay ku leeyihiin hal website kan waxaa ku dhis kartaa ilaa 5 website kan waa unlimited website lagu dhis karo marka haddii aad tahay hal qof mid walbana saa ujeeda qiimihiisa intaan waa 2.7 3.5 5.12 mar walba marka haddii kan marka aad rabto inaad istahaalo website macnaha oo markaas maxaa la waxyaabo badan aadan u baahnayn midkan u horeeya la iska iibsada oo loo yaqaan hajin plan
anaa marka waxaan ku tusi doonaa code ayaan kuu sheegi doonaa coupon code qiimo dhimis ku siinayo marka kanaan aniga hadda iska dooranaya waxaan leeyahay buy now ayaan leeyahay buy now markaa dhahda meeshaan uu keenaa marka xigta soo meeshaan dhowr step ku qoran stepkan koobaad saa ujeeda juice domain uu ku leeyahay magaca u dooro website-kaada soo kaba soo qaad magacaan dooranaa marka magacaan doorto marka magaca website-ka san u qoro meeshaan aad furaysaa meeshaan marka aad furto marka waxaa ujeedaa waxaa ku haystaa wax extension lahay .com .online .site .website marka mid aa rabto dooro aniga hadda .com ayaan iska dooranaya maadaama ay tahay mid common ahan so .com marka aad ku doorato saa ujeeda wuxuu ku leeyahay website-kaadi lama heli karo .com oo hore ayaa loo qaatay meeshaan marka waxaan sameynaya kale ayaan ku daraa for example kaba soo qaad magac baa bedelaya soo magac markaa meeshaan bedelo intan waxaan ka dooranaa .com saanoo kale ayaa la rabaa marka magacaada hadda waxaa ujeedaa websamayn.com in la heli karo oo markii haddii la heli karo meeshaan aad cagaarati kusoo fuulaysaa saa ujeedana domain waxay ku siinayaan marka u horeyso free 1 year ah oo hal sana ay ku siinayaan soo marka waxaad adiga iibsanayso marka u horeyso waa hostingka domainka free ayay kugu siinayaan soo sidaas niyada ku hay marka kuwan kale .club .site waxaad rabto adeegsan kartaa marka aniga hadda midaan .com ay dooran marka magac domainkeeda aan secure ku sameeyo la heli karo aan ogaado hoosan usoo dagaa meeshaani lacag $14 ayaa kula socoto oo wuxuu ku leeyahay domain privacy ku darso oo macnaha dadka qaariyaysan email iska ka soo dirin waxyaabahaas marka haddii aadan common ahayn qof caan ah waxyaabahan uma baahnid oo TikTok ka qaadi kartaa hadhow hadaa rabto gadaal ugu darsan kartaa qaybta si banalka no problem marka TikTok aan ka qaadi inta qaybta labaad stepka labaad wuxuu leeyahay juice waxaad doorataa hosting plan kan soo doorano waa Hajin haddii aad xasuusato faraha ka qaad meesha la isku haysto waa meesha marka meeshaani waa bilaha muddada markaasi aad lacagta bixinayso bilaha marka daan furo waa hal bil ku bixi karaa 2 bil 12 bil 36 bil inta raba ku bixi karaa soo hadda qiimaha ii dooran haddii aan hoos soo dego hal mar markii hoos u soo degto waxaa samaysaa midaani camal oo stepkan shanaad waxyaabahan lacala haddii ku saarantaa TikTok qaad sida kan oo kale hadda uma baahnin TikTok qaadena waxyaabahan gadaala SSL logan uma baahnid side logan soo hadda fiir marka $105 waa 36 bilood marka hadda maxaan sameynaa meeshaani marka hadda bilaha waa bedeleynaa meeshaani waxaan ka dhigaynaa bisha kaba soo qaad hal bilan ka dhigaynaa okay hal bil imisa ay naga siinayaan haddaan hoos soo dego hal shay bil waxaa ujeedaa $25 inay tahay marka waxaan ku siinaa coupon code ayaad meeshan gelinaysaa coupon code-kan waxaa lahaa web dhis ayaa lahaa web dhis markaad meeshan geli kadib validate ku dhufo qiimahan waxaan rabaa markaas inuu kaa dhaco ayaa la rabaa 25 yes saa ujeedo hadda wuxuu noqday 14 waxaad discount aad u heshay markaas lacag aad u badan ayaad markaas discount u heshay 11 miya wax saas ayaad markaas maxaa la discount aad u heshay marka kaasa hadda qiimaha 14 taas noqday marka midaan ku talanaa sanadka u horeyso weliga bil ha iibsan sanadka u horeyso qiimo dhimis badan ay ku siinayaan waxa la iibsadaa inta badan sanad ayaa la iibsadaa 12 bilood sababtoo ah 12 bilood wax sidaas u badan ma haddii aan 12 bil ka doorano meesha furno qiimo wuxuu noqonaa markaas konton ayuu noqonaysaa haddii u badato bishii waxay noqonaysaa markaas kaba soo qaad $4 miya wax sidaas camal kan badan ay leedahay marka sanadka hore hub ina markaas intaas aad iibsato sanad sababtoo ah hal bil haddii aad iibsato wax macnaa markaas ku keenayso marka intaas aad samayso so stepka saddexaad wuxuu ku leeyahay waxaad abuurataa account soo ujeedo meeshan waxaa gelisaa gmail-kaada marka gmail-kaada ku celi waa muhiim gmail-ku hadhow waxaad ku gal lahayd login ku dhihi lahayd inta waxaa siisaa markaas kaba soo qaad password ayaad siinaysaa okay password aad siinaysaa meeshan 4 number sameeyso ku leeyahay security pin waxa laga yaabaa hadhow marmar qaar inay ku weydiiyaan ku dhan security pin-kaada sheeg marka caawinaad weydiinaysid hubi sidoo kale meeshan marka waxa waaye stepka afraad macluumaadka billing information galin macluumaadka lacag bixinta magacaada inta ku qor magaca u dambeeya phone number-kaada iyo wadada aad joogto marka intaas ku qorto company-gaas waa optional oo iska dhaaf kartaa address-kan labaad waa optional iska tag country wadanka Soomaaliya ka door inta Soomaaliya ay dooran city magaalada Muqdisho state-ka gobolka Banaadir zip code-kan Soomaaliya maadaama zip code aysan lahayn iska qor markii xigta meeshan wuxuu ku leeyahay lacagta laba ku bixi kartaa waxa ku bixi kartaa PayPal oo ku bixi kartaa credit card soo credit card waxa samaysaa marka number-kaada iska gali okay number-kaada iska gali marka number-kaada gelisana meeshan waxa gelisaa CVV code-kaada iyo waxa saddexdaas number inta expiration card-kaada inta dhacayo faahfaahinta master card-kaada ku qoran gali marka inta samayso step-kan shanaad waxaan hadii lacalasan ay tig kugu saaran yihiin TikTok qaad okay hubi soo marka inta samayso hoos soo deg qiimaha saa ujeedada 47 ayuu noqday marka xogtii aan buuxinay soo saayida u yaraaday marka waxa samaysaa marka u dambaysa meeshan ay ku qoranta termskan waan kugu raaca Tixar marka hadda waxa sidaas ku dheeyin kadib waxa dhahdaa markaas jack out ayaad ku dhufanaysaa
soo markii check out now ay dhahdo sidan ayuu kugu soo baxaa. Soo waxaa ujeedaa markaasi inay lacagtii markaasi ay ka aqbalayaan. Soo lacagtii saa ujeeda wanaga akoonkeena markaasi way kala baxeen. Soo marka inta waxaan leenahay macluumaadkeena save ayaan leenahay emailka, sababtoo hadhow login ayaan ku leenahay ama sign in. Okay, soo marka intaas aad sameyso sidan ayuu kugu soo baxaa, shaashadan ayuu keeno. Soo meeshaan wuxuu ku leeyahay wax yar nooga sheeg maxaa la dhahay hadafkaadii waxyaabaha leedahay. Soo marka waxyaabahan skip ayaan iska leenahay oo qasab wax sida qasab maaha. Soo maxaan leenahay hoos ayaan usoo degaynaa, kadibna waxaan ku dhufanaynaa skip ayaan leenahay oo naga gudbi. Soo meeshaan waxaa leen close ayaan leenahay oo iska xiraynaa. Soo marka inta ayuu ku keenaya close marka dhacda qaybtaada dashboard. Soo marka waxaan leenahay kaliya install WordPress. Soo install WordPress marka dhacda sidan ayuu kugu soo baxaa, kaliya waxaa ku dhuftaa meesha ku qoran tahay install now. kadib marka inta ayuu keenaa. Soo inta waa muhiim markaas macluumaad aad gelinayso. Soo meeshaan waxaad gelisaa markaasi macluumaadka markaasi WordPress sida kaba soo qaad adminka. Soo aan kala saarno meesha ugu horeysa wuxuu ku leeyahay kaliya waxaad gelisaa site name magaca website-kaada. Soo waxaan hadhow waa bedeli kartaa kuwan. Soo kaliya magaca website-kaada sidoo kale site-kaada muxuu ku saabsan yahay. Soo maadaama hadda uu yahay website waxaan la sida website loo sameeyo waaye. Okay, marka xigta marka meesha ugu muhiimsan waa tan. Soo meesha admin username iyo password u sameyso oo hadhow mar walba aad WordPress login ku dhahdo qaybta dashboard-kaada aad ku aragto. Soo meesha hore magaca geli kadibna password u sameyso. marka xigta marka wuxuu ku leeyahay meeshaan waxaa gelisaa emailka markaasi emailkaada geli. Soo emailkaada hadhow gadaal waad gelin kartaa kaasi, haddana waad gelin kartaa, laakiin labada ugu horeyso username iyo password waa muhiim. Soo isku day inaad xasuusnaato. Soo marka intaas aad sameyso kaliya waxaad sameysaa hoos soo deg. Soo kadibna waxaa dhahdaa markaasi install. soo saa ujeeda marka hadda waxaa noo soo degaya markaasi WordPress waa uu noo soo degayaa. soo waqti yar ayay qaadanaysaa, iska sug. Okay, soo saa ujeeda marka hadda waxaa ujeeda inuu WordPress noo soo dega. markaasaan sitekeena u daawano. soo meeshaan ayaad markaas waa dul tagaynaa, kadibna tab cusub ayaan furaynaa. soo hadda saa ujeeda wuxuu leeyahay marka your connection is not private. oo maxaa laga wadaa marka macnaheedu maxay tahay? marka hore website-kaada ayaa waxay tahay inuu sameeyo wax loo yaqaan markaas propagation wax kale ma hostgator ayaa markaas waxay qaadaysaa dhammaan domain-kaada, kadibna waxay gaarsiinaysaa dhammaan serverada dunida. hey qofkan wuxuu iibsaday domain name. soo inaa markaasi domain name iibsatay una jira ayay tusaysaa. soo laga yaabaa marka inay qaadato 23 daqiiqo. soo mar walba soo laabo oo refresh garay. soo hadda muddo kadib marka haddii aan kusoo laabano sitekeena. soo saa ujeeda marka hadda sitekeena markaas waxaa ujeeda inuu live yahay oo mar walba qof walba oo markaas internet ku jiro uu soo access gareyn karo ama uu soo gali karo. soo marka si aan qaybta dashboard-ka u galno ama website-keena ama markaasi aan qaybta dashboard-ka ama back-end-ga markaas aan u galno. soo waxaan u baahanaa markaas inaan log gareyno. soo kaliya waxaa dhahdaa markaas /login ama haddii kale waxaa dhihi kartaa sometimes inuu login kaadiida laga yaaba wp/admin oo u taagan markaasi WordPress/admin. soo labadaba waa isku mid. soo marka intaas aad dhahday kadib waxaa dhahdaa enter. soo marka wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa markaasi username-ka iyo password-ka aad soo sameysatay. soo markaan WordPress soo dejisanayno username iyo password aan soo sameysano. soo marka aad gelis kaliya waxaa dhahdaa markaasi login. soo saa ujeeda marka hadda waxaa ujeedaa inuuna keena qaybta back-end-ga ee website-keena. soo mar walba website-keena sidaas ayaad markaasi u login gareyn kartaa oo aad ugu gudbi kartaa qaybta back-end-ga. soo inta waxaa loo yaqaanaa back-end, qaybta horena waa front, intana waa back-end. soo marka inta ayaad markaas ka maamuli kartaa website-kaada. soo markaan u gudubno step-ka labaad. soo step-ka labaad waxaan ku arkaynaa qaybta back-end-ga ee website-kaada si loo setup gareeyo. soo markaa website-kaada kusoo laabato sidaan kugu soo baxaa meelahan waxaa sameynaysaa close leedo iska xiraysaa. sidoo kale inta waa furaysaa waxyaabahan aadan u baahnayn markaasi dhammaantood tigta ayaad ka wada qaadaysaa. soo haddana hoos soo degaysaa meeshan setting-ka ah waxaa ka dooranaysaa permalink markaa ka doorato wuxuu kuu soo saaraa qaybahan kala duwan. meeshan post name ka dooro sababtoo mar walba waxaa saxe website-ka markii aad WordPress la soo degto oo setup gareynaysa inaad post name ka doorato. wuxuu kuu sheegaa page-ka magacaada /website-kaada ayuu kuu sheegaa oo macnaha link sax ayuu ku siinaa hadhow meeshaasi kor ka muuqanayo. marka intaas aad post name ka doorato kaliya waxaa dhahdaa save changes leh. kadibna waxaa imaadaa meeshan ay ku qoran tahay general meesha markaa imaado meeshan waa site title-ka waa magaca website-kaada wuu saxan yahay. meeshan tagline laga rabaa. tagline-ka waxaa ku qoraysaa what this site is about. website-kaada waxyaabaha uu ku saabsan yahay.
hadda kaba soo qaad website-kan waxaan leenahay markaas maadaama portfolio uu yahay markaasi kaba soo qaad waxaan ku qoraynaa get stunning designs maadaama dad aan wax u sameynayna markaasi waxaan ku qoraynaa markaasi get stunning designs aan iska leenahay so adiga waxaa doontaa dhawaad ku qoran kartaa marka intaas sameyso meeshan haddii website-kaada membership uu leeyahay registration oo qof iska diiwaangelinayo oo qayb login uu leeyahay inta waa tig waa saaraysa aniwankan register aa leedahay kadibna dadka iska register garaynayo subscriber ahaan u dhaafo okay adiga le mar walba website-kaada waxaad ka tahay administrator so hadda anaga qof uma baahnin inuu iska register garayo marka intaas sameyso waxaa dhahdaa save changes aa leedahay okay marka xigta waxaa imaanaynaa meeshan kore profilekaada kadib waxaad ka doorataa edit profile meesha ku qorantaa ka dooro so markii aad soo gasho qaybtan marka aad ku dhufato markaasi edit profile aad sidaan kugu soo baxa meelahan waxaa ka bedeli kartaa markaasi disaanada kalarkaada ayaad ka bedeli kartaa oo qaybta bidixda soo kaas iskaga dhaafeynaa hoos soo deg meeshan admin ay ku qoran tahay magacaada oo kale markaasi waad ku bedeli kartaa okay hadda magacaas kale haddana iskaga qoro meeshaan oo kasoo baxa oo kaas kadibna halkaas ayuu iska bedelaa marka waxaad sameysaa magacaada adminka oo iskaga dhaafi kartaa marka xigta markaasi meeshaan markaa emailkaada yaalo meeshaani waxaad sameynaysaa profile picture waa saaran kartaa meeshaasi kore hadda wax sawir ah meeshaani ma saarna soo sawir waa saaran kartaa graftor oo kaa raba inaad akoon ka dhex abuurato sidoo kale mar walba aad rabto inaad markaasi passwordka aad bedesho wordpress inta ayaa laga bedelaa sid new password aa leedahay waa kana password qartaa ka dooranaysaa kadibna waxaad hoos usoo degay update aa leedahay okay kadibna waa uu kuu shaqeynaa markaasi so marka intaas aad sameyso marka update profile meeshan u hooseyso intaas ayaa markaas qaybtan hadda noogu muhiimsan markaas maxaa lahay waxaan u gudbaynaa marka qaybaha kale ee xiga markaasi website-keena so step saddexaad waxaan u baahnaa markaas inaan la soo degno plugins iyo themes so pluginska wax kale maaha waa sida markaasi aabab oo kale markaasi plugin walba shaqo gaar ayuu qabtaa qaar waa page builders oo website-yadaada ayaa lagu dhisaa qaarna markaasi waa maxay waxyaabo kale ayay qabtaan themesna waa dhisaano diyaarsan markaasi waa oo markaasi wax ka bedelaya dhammaan qaabka guud ee website-ka so theme iyo template ay kala yihiin themeka waa mid guud halka template-ka uu yahay markaasi mid yar so marka qaybta dashboardka adigoo jooga so theme iyo plugins aa ula soo degto marka waxaan tagaynaa marka hore waxaan la soo degaynaa theme waxaan tagaynaa qaybtan appearance bidixdaada kadibna waxaad ka doorataa themes meesha ay ku qoran tahay so themekan ayaa kuu soo baxayo horey ugu jiro marka waa iska bixinaysaa kan hadda theme detailskan ku dhufo kadibna waxaa leedahay hoos imaaw kadibna waxaa ka doorataa delete mar walba waxaa wanaagsan inaad halka theme oo isticmaalaysa ma aha theme kale aad iska bixiso sababtoo ah website-kaada culeys ayay ka dhigayaan so marka add new ayaa leedahay haddana waxaan arkaynaa marka qaabka aad theme kale aad ugu soo darsan karto themeka aad rabto so hadda themeka marka template-kan aan adeegsan doono step ku xiga ayaan arki doonaa markaasi wuxuu ku shaqeynaa markaasi themeka loo yaqaano hello elementor ayuu ku shaqeynaa cadence waa uu ku shaqeynaa iyo aster iyo themam kale laakiin markii aad adeegsanayso hello elementor si sax ayuu markaasi dhisaanadiisa ugu soo baxaa marka hadhow soo import karayso so marka themeka hello elementorka uma baahin inaan raadino waa kana meeshan ayuu noo yaalaa so isagan waxaan leenahay markaas install so install marka aad dhahday kadib waxaa dhahdaa activate ayaa leedahay so markii aad themes ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxaa hal mar waxaan ku dhufataa meeshan themes ku dhufo kadibna halkan themes ayaa kugu soo baxaayo elementor ku shaqeynayo so marka themekana u baahan tahay hello elementorka waa themeka template-ka uu ku shaqeynayo cadence iyo theme kale waa adeegsan kartaa marka xigta saa plugins ku soo degno qaybtan bidixda plugins dheh kadibna waxaad ka doorataa meeshan ay ku qoran tahay add new so dhowr plugins ayaan la soo degaynaa hadda wixii kaloo dhiman markaas gadaal ayaan kala soo degaynaa plugin koowaad oo u baahanaa markaas waxaa loo yaqaanaa elementor ayaa loo yaqaanaa so meeshan searchingka ayaa markaas waxaad ku qoraysaa elementor ayaad ku qoraysaa so elementorkan u baahanaha waa kana markaasi isagan waxaa leenahay markaas install aa leenahay sidoo kale elementor header and footerna waa u baahanahay isaguna waa kana isaguna waxaan leenahay markaas install ayaan leenahay so hoos haddii aan usoo degno meeshan template kale hadda uma baahnin plugins kale uma baahnin aan dhehe so labadana u baahanahay so labadan install aa leenahay inta kalena gadaalaan kasoo degsanaynaa so markuu kula soo dego waxaa dhahdaa markaasi install marka soo dhahma activate ayaad ku dhufanaysaa so website-kooda kuu wadaa meeshaas marka kore ayaad sameynaysaa oo waa ka laabanaysaa markii activate aa dhahda website-kooda ku dhex geenaysa oo ka laabo okay kadibna waxaa sameysaa marka meesha ay ku qoran tahay installed plugins ku dhufo markaa ku dhufato elementor header and footer waa kana isaguna waxaa dhahdaa activate ayaa leedahay so marka xigta waxaan u baahanahay plugin kale meesha add new ay ku qoran tahay ku dhufo so pluginkan u baahanahay waxaa loo yaqaanaa markaasi envato
waa balaayinka dhowna markaasi maxaa la dhahaye aan template kusoo dhex import gareyn doono soo khasab baa kana waa u baahan tahay. So kadibna markuu intuu ku keenaa waxaa dhahdaa marka isaguna install now ayaa leedahay oo waa kana template saa ujeedo waa kana balaayinka oo saa ujeedo balaayinka waxaa la soo degtay 1 milyan oo markaas qof in ka badan ayaa la soo degtay. So balaayinka markuu sidan kugu soo baxo marka kadibna waxaa dhahdaa activate ayaa leedahay. So hadda marka intaas saas ayaan marka hadda usoo degnay balaaganiska u baahnay theme-ka. So qaybaha kale ee markaas xiga ayaan waxaan ku arki doonaa qaabka template-ka loo soo degsaday iyo balaaganada markaas dhammaystiran sida loola soo dego. So marka aan u gudubno markaas step-ka xiga. So step afraad waxaan ku arki doonaa markaas sida template-ka loo soo import gareeyo website-kaada loogu soo shubo. So markii aad qaybta dashboard-kaada kusoo laabatid mar koobaad si aan template-ka u helno waxaad furaysaa tab cusub waxaad booqataa website-keena markaasi webdisa.com ayaad booqanaysaa. Template-ka inta ayuu markaas dhex yaalaa oo maxaa la dhahaye markaasi website-keena waa ka dhex iibsan kartaa. So webdisa markii aad imaado qaybta shop ay ku qoran tahay ayaa dul imaanaysaa. Markii shop aad dul imaado waxaad kasii dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay templates ayaad ku dhufanaysaa. Waxaan close ka dhawaa xayeysiimo. So templates markaa ku dhufato template-kan u baahnaa waa kana isaga laftigiisa ku dhufo. So template-ka u baahnaa magaciisa waa kana waxaa la Portoser Personal Portfolio Elementary Template Kit. Template sidan ayuu egyahay. Marka description-kan aad akhrinaysaa template-kani waxa uu yahay in waxa loogu talagalay marka koobaad in lagu dhiso website portfolio ama CV ama resume CV ama portfolio website ayaa loogu talagalay markaas in lagu dhiso. Template-ka qiimaha hadda anaga ay iibino waa 20 laakiin website-ka markii aad booqato $24 ayuu ka dhex yahay oo waxaa ku dhufataa meeshan linkigan uu ku leeyahay arag sida template-ku uu egyahay linkigan ku dhufo. Linkiga markaa ku dhufato wuxuu ku dhex geenaa markaasi Team Forest oo ah meesha markaas template-ka aad ka iibsan karto haddii markaas maxaa la dhahaye waxyaabahan lacagta oo dhan aadan markaas aadan haysan. So template-ka waa kana Team Forest haddii aad dhex imaado qiimaha waa 24 waa arki doontaa. Template-kana marka saan uu egyahay muuqaal ahaantiisa pageskiisa waa kana home-ka waa kana about us-ka waa kana. So waxyaabahan dhan hadhow markaasi waxbaan ka bedbedeli doonaa markii aan kusoo shubano website-keena. So saa ujeedo qaabkan ayuu u egyahay footer-kiisa sidan ayuu u egyahay. Okay. Pages-kan sidoo kale waa kuwana contact us sidoo kale about us haddii aan ku dhufano page ahaan isaguna sidan ayuu u egyahay about me-ga markaasi. Okay. Skills-kaada inaad meelahan aad kusoo bandhigto sidoo kale meeshaan Facebook Twitter-kaada shaqooyinka waxyaabaha aad qabato sidoo kale meeshaan service-ka markaasi ama waxyaabaha aad bixiso ayaa inta ka dhex arkaysaa app development web development hadhow waxyaabihii aad bixiso haddaa graphic design tahay haddaa waxyaabo kale aad bixiso. Sidoo kale inta waa pages workskii arkaysaa shaqooyinkaada pricing-ka oo samaysan kartaa. Pricing-kan wax ma kale ma aha waa table-ka adiga ku degsan oo markaasi aad dadka customer-ka hadda u sheegayso hadhow tusaale ahaan kaba soo qaad waxyaabahan iyo waxaanan bixiyaa adeegyadan bixiyaa mid ka mid ah planiskan doora ayaa leedahay qofka adiga ayaa uu sheegayo waxyaabahaas. Sidoo kale waxaa kale ku haystaa meeshan team oo ku haystaa haddii aad tihiin dad badan markaas kaba soo qaad teamka aad tihiin waxyaabahaas dhan meeshaan kusoo bandhigaysaa qofka magaciisa iyo waxa qaybta uu taagan yahay ama graphic design ama video editor. So marka meeshan career-ka marka aad timaadana waa tana career-kan page-kan isaguna wuxuu kuu sheegaa markaasi waxyaabaha markaasi maxaa la dhahaye job opportunity-ga fursadaha shaqooyinka waxyaabaha bannaan. Marka contact us-kan nakeen waxaanu page macnaha hadda sida meeshan ka muuqato waxaa ku jirto 10 page in ka badan. Marka page-kan dhan waa isticmaali kartaa haddii aad rabto qaar ka mid ah waa iska dhaafi kartaa. So meeshan waa contact us-ka phone number-kaada email-kaada phone number-kaada address-kaada ku qoraysaa qofka uu kala soo xiriirayo. Marka saa ujeedo meelahan waa kuwaas footer-kii waaye. Template-ka marka hire me meel ay ku qoran tahay ayaa jirto oo qofka markaas contact us-ka waa ku xiri karnaa hadhow linkigaas ama bottom-kaas waa ku xirana qofka markuu ku dhufto meeshan waa wejigii hore. Marka template sidaan uu egyahay hadda haddii aan template-kan maxaa la dhahaye aan fiirino inta markaas uu ka joogo qiimaha markaas uu ka joogo buy now markii aad ku dhufato tusaale ahaan hataa waa arkaysaa wuxuu ku dhex geynaa markaas Team Forest uu ku dhex geynaa qiimihiisa ujeedo waa $26 waaye. Template-ka waa 24 iyo handling fee $2 la socoto oo fiihan. So 26 ka qaadaya markii inaad $26 aad ku iibsato
ama inaad markaasi websitekeena 12 aad ku iibsato midii ku roona samayn kartaa. Haddii aad u baahan tahay inaad websitekeena ka dhex iibsato, linkigan bottomkan ku dhufo, wuxuu ku dhex geenaa markaasi WhatsAppkeena ayuu ku dhex geenaa. So marka WhatsAppkeena ku dhex geeyo markaas waxaa samaynaysaa waad nala soo xiriiraysaa template-ka annaga ayaa markaas maxallay sida loogu shubto ku tusaynaa. So markii aad template-ka aad soo iibsato ama lacag la soo degto, waxaa kusoo laabataa qaybta dashboard-kaada. Inta waxaan ku arkaynaa marka sida loo soo import gareeyo. Sida loo soo import gareeyo way iska fududahay. Haddii hal mar aad imaado meeshaan plugins oo installed plugins aad kasii doorato, hore waxaan usoo degsanay pluginka loo yaqaano Envato. Envato waxaa iskale shirkadii hadda Team Forest pluginkan. So marka isaga dhexdiisa ayaa markaasi aad kusoo import gareynaysaa template. Marka meeshaan bidixdaada imaanaysaa ay ku qoran tahay Elementis waa markaad dul tagto waxaad kasii doorataa installed kits meesha ay ku qoran tahay kasii dooro. Template-yada aad la soo degto dhan meeshaan arkaysaa. Hadda wax lama soo degin, marka kiyaan soo upload gareynayna template. Waxaa dhahdaa upload template meesha ay ku qoran tahay ku dhufo. Markaa ku dhufato wuxuu ku dhex qaadaa markaasi qaybta dashboard ama qaybta markaasi gadaale ee wuxuu ku dhex qaadaa markaasi computerkaada. So template-kii aad la soo degaysaa. Hadda template-kan u baahanaa waa kana markaasi hadhow sidaan oo kale ayaa template-ka u dooranaysaa, kaliya waa ku dhufanaysaa. Sidaas ayaad markaas usoo upload gareynaysaa. So markaa template kala soo degto waa kana page-kii waxyaabihii oo ka koobnay oo dhan. Marka meeshaan install requirements waxa la dhahayaa jiro markaasi ayuu ka rabaa. Wuxuu ka rabaa inaad haysato Elementor Pro kale hadda gadaalan soo degsanayna TikTok ka qaadayna labadan template oo kale waxaa leenahay install aan leenahay. Saa u jeeda labadaas success ayuu dhahaa waa soo degsanay. Marka haddii aan refresh gareyno one requirement bas meesha yaalo oo Elementor Pro rabaa. Elementor Pro sidoo kale asiguna haddii aad booqato website-keena qaybta shopping aad booqato plugins waa ka dhex helaysaa. Marka waxaan samayn doonaa qofkii markaas iibsado template-ka oo qiimihiisa 12 ahan pluginkan Elementor Pro waxaan ku siin doonaa markaasi si free ayaan ku siin doonaa. Isagu waa 12 laakiin haddii aad pluginka iibsato ama Elementor Pro aad iibsato labadooda mid kamid ah free ayaa helaysaa. Kaliya waxaa u baahan tahay inaad mid iibsato, midka kale free ayaan markaas kugu siinaynaa. So marka waa fursad ka faa'iideyso. Marka hadhow Elementor Pro sida loo soo import gareynaa wax kale ma iska fududahay. Isaguna waxaan tagaynaa qaybtan plugins kadibna waxaan leenahay add new ayaan leenahay. Elementor-ka waa inaan caadi ugu soo shubnaa Elementor Pro. So markii aad dhahdo add new waxaad ku dhufanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay upload plugins kadibna waxaa leedahay choose file ayaa leedahay. Isaguna wuxuu geenaa qaybta gadaale ee computerkaada ayuu geenaa. Kadib waxaan raadinaynaa markaasi Elementor Pro ayaan markaas raadinaynaa. So Elementor Pro waa kana isaguna hadhow sidaas oo kale ayaad markaasi ugu soo shubanaysaa laba jeer klik ku leedahay kadibna waxaa leedahay markaas install now ayaad leedahay. So install now markaa dhahdo kadib waxaa leedahay markaas activate plugin ayaa leedahay. oo active gareynaysaa pluginka. So marka activate dhahdo waa kaasa pluginka Elementor Pro waa nagu soo shubmay waa kana. So marka waxaa samaysaa kusoo laabo Elementor kadibna installed kits meesha ku qoran ku dhufo. Hadda marka waa fiirinayna inaa wax requirement iyo in kale wax nooga baahan yahay kadib waa kana template-kan soo import gareynay. Kaliya view ayaa leedahay mar walba aad rabto inaad template-ka aragto. So hadda saa u jeeda markaasi wax requirement ah markaasi noogama rabo oo template-ka dhan waa uu noo shaqeynaa. Hadhow marka page-ka sida loo soo import garay waxyaabahaas ayaan u gudbaynaa. Marka intaadan waxyaabahaas u gudbin mar koobaad waxaa u baahan tahay global kit site-kan inaad markaasi mar koobaad aad soo dhahdo import aad soo dhahdo. Global kit-ka wax kale ma aha waa kalarada in qaabka uu u dhameystiran yahay website kaliya midkan ayaa waxaa leedahay markaasi import template ayaad ku dhufanaysaa. kan macnaha wuxuu sameynaa wax kale ma aha wuxuu configure ku sameynaa ama uu bedelaa Elementor teamka ee hadda noogu jiro qaybaha styleskiisa dhan ayuu bedelaa oo template-kan ayaa la wareegaya website-keena dhan styladiisa waxyaabahaasi. Marka intaas aad samayso marka hadda step kale ayaan markaas u gudbaynaa oo waxaan ku arkaynaa qaabka pages loo abuuro iyo qaabka loo abuuro markaasi menu loo abuuro. Kadib ayaa markaas waxaan u arkaynaa ama aan bilaabi doonaa dhisitaanka website-keena. So markaan u gudubno step-ka xiga. So step-ka shanaad waxaan ku arki doonaa markaasi sida loo abuuro pages iyo menu. So pages iyo menu si aan u abuurno waxaa ku nagu soo celisaa qaybta dashboard-keena. Marka koowaad waxaan abuuraynaa pages. Haddii hal mar aan booqano template-ka aan fiirino template-ka hadda fiir imse page ayuu ka kooban yahay home, about us, service iyo sidoo kale contact us. Sidoo kale inta fur page kale ayaa arkaysaa. waxaa kaloo kamid ahan orgoga arkaysaa, pricing arkaysaa waxyaabahaas. So marka intaanu page hadda anaga dhamaantood ma abuurayno laakiin waxaan ka abuuri doonaa 5 page aan abuuri doonaa. Inta kale adi markaas sample ahaan usoo qaado oo markaasi abuur markaasi. So marka hadda marka intaas aad sameyno
waxaa nagu soo celisaa qaybta website-keena, waxaad ku dhuftaa pages, kadibna waxaa dhahdaa all pages ayaa leedahay. So all pages markaa dhahda pageskan oo themeka wata ayaa jiro, inta ayaad tigaa saareysaa, inta ayaad fureysaa, move to trash aad dooranaysaa, kadibna waxaa leedahay apply ayay leedahay. Marka koobaad waxaan u baahanaa inaan iska bixino pageka markaas aan la isticmaaleynin. kadib markasaan dhistaan ku bilaawno waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay add new ayaan ku dhufanaynaa. add new marka aad ku dhufato meesha marka pageka magaciisa ku qoreysaa. So anaga hadda home ayaan ku qoraynaa. Home markii aad ku qorto inta waa fureysaa. Inta markii aad furto waxaa ka doorataa elementary full width ayaad ka dooranaysaa. elementary full width ayaad ka dooranaysaa oo macnaha homeka maadaama uu yahay pageka u horeeyo waa in markaasi aysan waxyaabo kala soo bixin. Marka kaasi tig saar, kadibna waxaa dhahdaa publish ayaa leedahay. haddana waxaad ku dhuftaa bottomkaas kusoo dhufo, kadibna waxaad ku dhufataa marka meesha ay ku qoran tahay haddana add new. So add new markaa ku dhufato haddana pageka labaad u baahanaa waxaa loo yaqaanaa markaasi about us ayaan sameynaynaa. So marka meeshan keliya waxaa ku qortaa markaasi about us. So ama haddii kale waxaan sameynaynaa maadaama template sidoo kale u qoran yahay wada capital aan ka dhiganaa. asiga marka wax oo full width ay kama dhigaysid, keliya waxaa leedahay publish ayaa leedahay. haddana meeshaas ayaad ku dhufanaysaa markaasi. haddana page kale abuuranayna waxaa loo yaqaanaa markaasi surfaces ayaa loo yaqaanaa. So haddana waxaa sameynaysaa meeshan ayaa waxaa ku qoraysaa markaas surface ayaa ku qoraysaa, kadibna waxaa leedahay isaguna markaasi publish. okay haddana waad kusoo laabanaysaa markaasi page kale ku xigoo markaasi aan abuurayno waxaa loo yaqaanaa contact us ayaan abuuraynaa. so contact us-kan ayaa markaas isaguna waxaad sameynaysaa ayaad qoraysaa. kadib markii aad contact us aad qorto waxaa leedahay isaguna publish ayaa leedahay. okay kadib waa imaanaysaa marka haddana meeshaasi. okay markaan waxaan sameynaynaa afartan page maadaama abuurnay intaan ayaan sameynaynaa pagekan drop down-ka ahan. mar koobaad waxaan sameynaynaa meeshan waxaan ku qoraynaa pages, kadibna waxaan qoraynaa laba page oo kale aan qoraynaa. so mar koowaad waxaan siinaynaa pages aan qoraynaa sida markaasi ka muuqato template-ka oo kale. pages markii aad qorto waxaa dhahdaa isaguna publish aa leedahay. okay haddana add new pagekaas mar walba waa ku dhufan kartaa oo qasab maaha inaad ka baxdo aad kusoo laabato meesha midigtaada add new page waa kusii dhufan kartaa. so hadda markii aan qorno pages haddana waxaan qoraynaa pageka ay ku qoran tahay markaasi pricing iyo waxaan kaloo qoraynaa pricing iyo works. okay so mar koowaad waxaan oo qortaa meeshaani pricing, kadibna waxaa dhahdaa markaasi publish ayaa leedahay. haddana add new page aan leenahay meeshaasaan ku dhufanaynaa. so markii aad sameyso haddana waxaan qoraynaa markaasi works oo kale qofkani meesha uu shaqadiisa kusoo bandhigahay, kadibna waxaa leedahay isaguna markaasi publish. okay intaasaan ku gabagabeynaynaa. marka meeshan ayaad ku dhufanaysaa bottomkani. hadda maadaama intaanu page aan soo abuurnay menu ayaan u baahnaa marka inaan abuurno. waxaad dul imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay appearance, kadibna waxaad ka dooranaysaa menuga marka waa kana hadda wax menu aan nooma abuurno, hadda ayaan abuuraynaa. meesha menuga namekiisa ayaad siinaysaa oo hadda kaba soo qaad primary menu ayaan leenahay oo kaba soo qaad waa midka noogu horeeya oo kale. marka intaas aad sameyso menuga hagoo kasoo muuqana waxaan leenahay qaybta headerka oo website-keena rabnaa ayaan tig saaraynaa, kadibna waxaan leenahay create menu. markii intaas aad sameyso meeshan view all ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. dhammaan pageskan tig ayaad saaraysaa. marka aad tig ku saarto waxaa leedahay add to menu ayaa leedahay oo menuga ayaad markaas kusoo daraysaa. okay markii aad menuga kusoo darto waxaan fiirinaynaa sida meesha ka muuqata template-ka sidaan ay u kala horeeyaan oo kale ayaan u kala horeynaynaa ayaan u kala hormarinaynaa. so home about surface aan leenahay inta contact us. okay homekan oo kale hal mid aan iska bixinaynaa. markii intaas aad sameyso meeshaan waxaad imaanaysaa marka pages inta keenaysaa contact us hoosaan geenaynaa. so pages home about us surfaces marka intaas aad sameyso waxaad sameynaysaa markaasi meeshaan ee pages ku qoran tahay pricingka dhinacan ayaan u jiidaynaa oo waxaan sameynaynaa sub menu waxa la dhahayo sub item. marka hore waa menu item waaye, laakiin markii aad mid hoos dhigto wuxuu isku bedelaa item sida meesha hadda markaas ka muuqato. kuwaxaan oo dhan waa sub items markaasi. so hadhow qofku markuu pages dul tago sidaas ayay markaas u hoos imaanaya. marka saasaa sameynaysaa. homekan oo kale waxaan sameynaynaa markaasi xoogaa fartiisa capital aan ka dhigaynaa. marka intaas aad sameyso marka keliya waxaa leedahay save menu ayaa leedahay. so menuga markaa save garaysa hal mid ah qasab ee markaas inaadan iloobin. waxaad dul imaataa meeshaan ay ku qoran tahay markaasi settingka, kadibna waxaad kasii doorataa meesha ay ku qoran tahay reading.
markaa reading kasii doorato meeshaan staticska ahan static pageka ayaad tig saaraysaa. meeshaan home pageka waa inaan u sheegnaa oon dhahnaa home pageka waxaad doorataa home dooro. haddii aadan u sheegin hadhow dadka markii homeka ay dul joogaan meelo kale ayuu geenaa. marka pageka homeka waa inaad u sheegtaa theme walbo inuu yahay home pagekaada. haddii aad page blog aad abuurto isaguna waa meesha inaad blog ka doorataa. hadda ma lihin markay homeka aad doorato hoos soo deg kadibna waxaad dhahdaa save changes ayaa leedahay. okay markaa save changes dhahda hal mar websitekaada hadda booqo. markaan websitekeena meeshas kore ku dhufano booqana fiiro waa kana marka waa home about us service pages markaan dul tagna waa arkeynaa. means hadda designka ma hagaagsano laakiin hadhow headerkaada sidaas ayuu u shaqeynaa. marka haddaan waxaan arkeynaa stebyada ku xiga sida headerkan loo abuuro iyo sida loo abuuro markaasi footerkan iyo sida loo bilaabo markaasi dhisitaanka websitekaada si loo bilaabo. soo markaan u gudubna stepka xiga. soo stepka laxaad waxaan ku arki doonaa markaasi sida looga loo sameeyo markaasi oo websitekaada loogu sameeyo. soo marka waxaad sameynaysaa taab cusub ayaad furaysaa. waxaad imaadaa markaasi taab cusub markii aad furto websitekani loo yaqaano markaas logo maker. meeshaas ida ayaad ka tagaysaa r ay leedahay kadibna waxaad raacinaysaa markaasi .com sidaas ayay u qoran tahay. marka kadib waxaa dhahdaa markaas inter ayaad leedahay. mar koobaad looga ayaan soo sameynaynaa kadib waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay start my design. soo start my design markaa ku dhufato sidaan uu kugu soo baxaa create new design aan leeyahay maadaama horaan aan waxyaabo u sameyn jiray. soo marka intaas aad sameyso calaamadan waxaa ku dhufanaysaa tagastiga ayaad mar koobaad ku dhufanaysaa. soo tagastiga markii aad ku dhufato meeshaan waxaad ku qoraysaa websitekaada magaciisa ayaad markaas ku qoraysaa. soo hadda kaba soo qaad waxaan iskaga qoraynaa web sameyn waa looga iska sambal ah laakiin hadhow sidaan si ka duwanaad adiga u sameysanaysaa. meeshaan markaa madow aad tagastiga ka dhigaysaa. markii aad sameyso hal mar highlight saar waxaad furaysaa haddana waxaad furaysaa meeshaan styleka ay ku qoran tahay aad markaasi aad furaysaa. soo style markii aad furto meeshaan waxaad ka weyneyn kartaa markaasi widthga ama balaca markaasi loogadaada. soo haddoo kale bold ayaan ka dhigaynaa at least waxaan sameynaynaa intaas ayaan geenaynaa. kadib waxaan sameynaynaa geesaha ayaan markaasi kasoo sikinaynaa. okay geesaha ayaan kasoo sikinaynaa. soo markaa intaas aad sameyso waxaan soo qaadanaynaa markaasi shape waxa la dhahaa ayaan soo qaadanaynaa. okay shape aan soo qaadanaynaa shapeka intaan ka helaynaa. soo shapeka waxaan u baahannahay inaan adeegsano shapekan oo kale kaba soo qaad. shapekan oo kale marka waxyar waxaan sameynaynaa isaguna waa yareynaynaa markaasi. okay inta ayaan la simeynaa intiinoo la ekaada ayaan rabnaa si guud ama haddii kale shape waxaan rabnaa soo qaadanaynaa oo circle sidaan oo kale camal kaba soo qaad. okay sidaan oo kale okay oo tagastigan hadhow markaasi uu la ekaado. soo waxaan sameynaynaa markaas aan isku dayaynaa inaan abuurno markaasi sida midkaan oo kale meesha hadda markaasi ka muuqdo oo markaasi websitekaani lagu sameeyey. soo marka sidaas uu egyahay at least anaga sidaas oo kale ayaan markaas sameynaynaa. soo marka waxaan sameynaynaa midabka oo kale hal midabka websitekeena u dooranayna waa kana blue. midabkan koodkiisa waa koobiyeysan kartaa mar walbo koobiyaa dhihi kartaa sidaas oo kale. inta hal mar highlight saare meeshaani waxaa leedahay paste yaa kusoo dhihi kartaa koodkii aad hadda soo koobiyeysay ee bluega ahaa. okay marka intaas sameyso tagastigan waxaa sameynaysaa isaguna duplicate aan ku sameynaynaa. okay duplicate markii aad ku sameyso waa soo qaadaysaa keliya waxaan ka rabnaa eeda bisaan ka rabnaa. waa soo jiidaysaa markaa highlight saaraysaa eedaani waxaad ka dhigaysaa meeshaan midabkeeda caddaan ayaad ka dhigaysaa. okay soo marka intaas sameyso eeda maya w aan adeegsanaynaa maadaama hadda websiteken magaceena websitekeena ka bilaabanaya w laakiin adiga websitekaada magaciisa mar walba wuxuu ka bilaabanaa markaasi meeshaas gelinaysaa. okay hadduu xirfadla u yahay magaca websitekaada loogadaad markaa xirfadla ka dhigaysa meeshaas oo kale xa aad adeegsanaysaa. soo hadda waa sambal ahaan annaga waxaan sameynayno. okay hal mar wuxuu dhan highlight saaraysaa meeshaanaad furaysaa markaas hoose ay ku qoran tahay crop. okay cropka waa taasa waa meeshaas hoose ayay ku taalaa crop markaa furto intaan waa soo jaraysaa markaas. okay waxaan kaloo dhan uma baahnid intaas bas ayaan markaas inagu looga ugu baahannahay. okay
sidoo kale kan waxaan sameynaynaa wax yar koran u qaadeynaa ama asigoo dhan hal mar ah highlight saaraynaa waxaan sameynaynaa oo isla yaraynaynaa si oo ula ekaado loogadeena okay hal mar waxaan iska xir meeshaas hoose crop ku qorantaa ku dhufo haddana waxaad sameynaysaa waa jari kartaa waxyaabahan dhan okay markii aad jarto marka sidaas u habaysato loogadaada meeshaas koro ku dhufo isoo flow ku qoran tahay soo markii intaas aad sameyso si aad usoo degsato meeshaas koro save flow ku qoran tahay ku dhufo soo markii intaas aad sameyso meeshaan ay ku qoran tahay download low resolution png file aad ku dhufanaysaa meeshaan tig ayaad saaraysaa markaad tig saarto meeshaan emailkaada oo kale ayaad gelinaysaa hadda kaba soo qaad emailkaanan geliy aniga kadibna waxaan leeyahay send file aan leeyahay isoo dir fileka okay checking your email for file so wuxuu ku leeyahay emailkaada jeegaray fileka waa lagu soo diray so markii intaas aan sameyno hal mar waxaan tagaynaa qaybta gmailka ayaan tagaynaa kaba soo qaad oo waxaan fiirinaynaa inuu fileka markaas inoo soo diray iyo in kale so waa kana fileka waa noo soo diray waxaan sameynaynaa markaas waa furaynaa waayadii hore wuxuu lahaan jiray meel download ah laakiin markii dambe waa ay bedeleen dadkii emailadooda inay rabaan inay aruuriyaan in kale ma fahmayo maqaana laakiin hadda qofku mar walba la soo degayo waa inuu markaas emailkiisa geliyaa so marka waa kana download free file aad meeshaan ku dhufo emailka kuu soo direen emailkaada kugu soo dirayaan fileka isla automatic ahaan so hadda waa kaas waa uu noo soo degaybo okay fileka waa uu noo soo dego waa kaas automatic asiga u furmay aan fiirina marka loogadeena say u eg tahay soo loogadeeni waa kaasa sidaas ay u eg tahay waa background la-aan waa sidaas ay u eg tahay markii intaas aad sameyso hal mar waan kusoo laabanaynaa markii xigto waxaan sameynaynaa u baahanahay inaan sameyno site identity waxa la hayo ama site icon calaamadaas koro ee meeshaas ku taala zoom ayaan soo leeyahay taasaa waxaa loo yaqaanaa site icon marka haddana site icon ayaan sameynaynaa site iconku iska fududa isagu marka koowaad waxaan sameynaynaa waxaan iska dileedeynaa calaamadan iska dileedeynaa shape-kaani kadib meeshaan bis waxaan kusoo reebaynaa w ayaan kusoo reebaynaa magaca website-keena xarafka u horeeya kadibna waxaan sameynaynaa waxaan iska xiraynaa meeshaan closeka oo cropka ayaan ku dhufanaynaa marka waxaan sameynaynaa w-dan bisaan soo yaraynaynaa okay wax kale uma baahnin w-dan u baahanahay sizekeeda waa yareyn kartaa haddii aad u baahan tahay iyaduna okay cropka ku dhufa hal mar sizekeeda yaray sizekeeda markaa yareyso meeshaas save looga qoran tahay ku dhufo haddana meeshii ku dhufo haday download meeshaan ku dhufo okay mar kale wuxuu ku weydiinaa inaad emailkaada geliso kaa rabaa soo emailkaada geli kadibna waxaa dhahdaa send file to my email check your email uu leeyahay marka okay aan jeegarayn emailkeena soo waa kana marka waa furaynaa kadibna inta ayaan furaynaa waa kana markii hadda u dambeyso noo soo diro waaya kan soo marka waxaan leenahay download free file meesha ku qorantaa ku dhufo asiga automatic ahaan markaas usoo degaayo soo marka saa ujeeda hadda waa kana waa noo soo degay marka waxaan sameynaynaa waxyaabahan dhan waan iska xiraynaa sidaasaa marka aan loogada u sameynaa haddii aad u baahan tahay inaad hadhow waxyaabahan wax ka bedelsho meeshaan ku qorantaa ku dhufo saddexdaas dhibcood kadibna waxaad ku dhufataa meeshaan ay ku qoran tahay markaas auto save work shaqadaada markaas save garayaa lay hadhow loogadii wixii dhammaan halkaas ayaad ka bedbedeli kartaa soo marka hadda looga waa sameysan step ku xigo markaan u gudubno qaybaha kale ee website-keena sida headerka iyo footerka iyo waxyaabahaas loo hagaajiyo soo stepka toddobaad waxaan ku arkaynaa markaasi sida loo abuuro markaasi header iyo footer soo si aan header iyo footer u abuurno qaybta dashboardkaada kusoo laabo kadibna waxaad dul tagtaa meesha ay ku qoran tahay appearance kadibna waxaad dul tagtaa elementary header and footer builder ku dhufo kani waa balaaginka markaas aan stepka markaasi saddexaad kusoo degsanay balaaginada soo degsanayna ayuu kamid yahay elementary header and footer soo haddii aadan lasoo degin lasoo deg marka soo waxaad dhahdaa keliya add new ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaana skip ayaad iska leedahay oo ka baxaysaa soo skip markii aad iska dhahdo meeshaan waxaad siinaysaa magac ayaad siinaysaa markaasi aad waxaad abuurayso soo hadda header aan abuuraynaa meeshaan headerka ayaan siinaynaa markaas magaciisa soo meeshaan select optionka waxaan ka dooranaynaa header displayga waxaan leenahay waxaa kusoo bandhigtaa website-ka oo dhan entire website user roleskan all ayaan leenahay markii intaas aad sameyso marka waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qorantaa publish ku dhufo okay publish markii aad ku dhufato kadib waxaa dhahdaa markaasi edit with elementary ayaad ku dhufanaysaa marka koowaad waxaan arkaynaa template headerkiisi loo soo import gareeyo soo inta ayuu ku keenaa close ka dha waxyaabahani okay
marka waxaa ku dhufataa calaamadani envato ay ku qoran tahay ku dhufa envato elements template-kani waa kana view installed kit ayaad leedahay mar walba template-ka sidaan usoo import garaynaysaa so marka hadda meeshaan waxaad ka fiirinaysaa meelaha ay ku qoran tahay markaas header ayaad raadinaysaa so headerka waa kana so headerka waa halahaasi kore marka headerka waxaa leedahay insert template ayaad ku dhufanaysaa so waa kana markaasi headerkii waa noo soo import garaysmay meeshaan saa ujeedo pageskan waa kuwii aan abuuran annaga ma aha wuxuu template watay mar koobaad loogadana waa iska bedelaynaa meeshaan ku dhufo qalinka dulta qalinka ku dhufo kadibna meeshaan delete ku dhufo kadib waxaa dhahdaa juice image ku dhufo kadibna waxaa dhahdaa select file loogadii hadda markaas stepka hore aan haddadan kusoo sameysanayna ayaan markaas soo import garaynaynaa waa kana 2 jeer ku dhufo double click dheh so double click markaa dhahdo kadib waxaa dhahdaa select ayaa leedahay loogadani waa taasa so marka meeshaan link ay ku qoran tahay waxaa furaysaa custom url ka dhigaysaa custom url markii aad ka dhigto meeshaan waxaa sameynaysaa waxaad ku qoraysaa meeshaan home qofka hadhow markii oo ku dhufto home-ka waa kaasa ku xir hadhow markii loogada qofkan uu ku dhufto wuxuu dhex geenaa qaybta markaas wejiga hore ee home-ka mar walba loogadaada marka home ayaa lagu xiraa linkiga lagu xiraa so marka meesha style ay ku qoran tahay ku dhufo meeshaan waxaad ka weyneyn kartaa markaas width-ga size-ka haddii uu ka diido mid koowaad midka labaad kusii tijaabi haddana okay haddii markaas intaas uu ka diido waxaad sameysaa meeshaan ayaad imaanaysaa calaamadaas filaarta markay kusoo baxdo qaybtana aad u jiidaysaa markaas okay xoogaasi markaas loogadaada ay u weynaato so hadda waa ay weyn tahay kadibna waxaad sameynaysaa kana wax yar ayaad markaas isaguna kana qalinka ku dhufo bottomkan kadib waxaa keentaa qaybta centerka bottomkan marka qofka hire me ay ku qoran tahay shaqaaleysi waxaan ku xiraynaa markaasi linkiga aan ku xirayna wuxuu noqonaa markaasi page-ka markaas contact us ayaan ku xiraynaa waa kaasa page contact us uu soo boodaa ku dhufo marka intaas aad sameyso marka meeshaan dhex qalinka ku dhufo saa ujeedo fartaani hadda aad looma jeedo wax hagaajinaynaa kadib waxaa tagtaa style meesha ku qoran tahay ku dhufo meeshaan text color-ka waa furaysaa waxaa ka dooranaysaa madow mar koobaad textigan waxaan ka dhigaynaa madow si ay dadka si fiican ugu arkaan kadibna meeshaan typographic waa furaysaa markii aad furto meeshaan waa bobbins hadda farta waa 14 waxaan ka dhigaynaa intaasaan 15 aan ka dhigaynaa kadib waxaa sameynaynaa meeshaani weight-ka waxaan ka dhigaynaa 600 aan ka dhigaynaa okay hadda marka si nadiif ayaa markaas loogu jeedaa okay intaas markaas sameysa update aa leedahay shaqadaada waa save garaynaysaa haddii aad rabto bottomkan hataa meesha uu ku jiro right kaligaa dhihi kartaa delete dhihi kartaa oo waxaad ku bedeli kartaa bedelkeeda social icons oo kale social iconskan oo kale waa soo jiidi kartaa markaasi halkaasi waad soo dhigi kartaa social iconskan size-kooda waa hagaajin kartaa waa yareyn kartaa marka delete leen anaga hadda uma baahnin laakiin sidaas waa sameyn kartaa kana waa iska bedeli kartaa okay loogadan waxaan sameynaynaa wax yar cabirkeeda waa yareynaynaa okay at least intaasaan ka dhigaynaa markaad intaas aad sameysay update meeshaan ay ku qoran tahay marka responsive mode-ka ku dhufo kadib waxaad kasii doorataa mobileka sidaan ugu soo baxaa dadka haysta mobilkaada dadka mobilka haysta markay soo booqdaan sidaan ay u arkayaan so marka mobilka hagaajino meeshaan styleka waa furaysaa ku dhufanaysaa kadib meeshaan waxaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay mar koobaad kaba soo qaad toggle bottomkan oo kale ayaad furaysaa marka aad furto toggle bottomkan colorkiisa waa bedeli karnaa waxaan sameyn karnaa backgroundkiisa waxaan ka dhigi karnaa blue colorkiisana waxaan ka dhigi karnaa meeshaan kale cadaan aan ka dhigi karnaa so sidaas oo kale ayaan ka dhigi karnaa loogadana waxaad sameynaysaa ku dhufo iyaduna xoogaa aad uma weyno laakiin waa soo weyneyni kartaa iyaduna sidii hadaayo kala sameyn kartaa ama haddii kale waxaad sameyni kartaa meeshaasaad ku dhufanaysaa oo markaas aan hadda ku hayo farta kadib meeshaan waxaad ka dhigi kartaa konton waa hadda 30 oo kale waa ka dhigi kartaa markii 30 aan ka dhigto midan kale loogada ayadana waad ku dhufanaysaa work column-kaas ku dhufanaysaa kadib meeshaani maadaama ka 30 ay tahay waxaa soo haraysa 70 soo halkaasi waad sameyn kartaa 70 ama haddii kale waxaa ka dhigi kartaa 60 waa ka dhigi kartaa waa weyneyn kartaa okay hadda haddii aan iska xirno sidaan ayuu ku soo baxaa marka waxaan sameynaynaa waxaan ku dhaafeynaa 70 aan iskaga dhaafeynaa ama haddii kale waxaan leenahay 60 aan iskaga dhaafeynaa 65 oo kale 65 oo kale okay 65 hadda fiir marka si sax ugu soo qabato loogada iyo waxa dhan waa isleeyihiin okay meesha marka hover qofku markuu dul imaado saa ujeedo isbedela hal mar waxaa sameysaa qalinka ku dhufo markaa ku dhufato bottomka inta iska xir meeshaan toggle bottomka imaa oo hoose kadib hover imaa
soo qofka markuu qof ku dhufto buluuga usoo baxaya, ma rabno inuu buluug usoo baxo. waxaan rabnaa markaasi inuu usoo baxo kaba soo qaad cadaan oo kale waxay noqonaysaa. soo hadda fiiro marka isma bedelayso kaasa markuu qofka kuwan dul imaadana sidaas usoo baxayan. marka drop downkan main menugan oo kale waa kaasa isaguna, ama drop downkan oo kale waa fiirinayna oo furaysa isaguna. text colorkiisa waa noocaas, waxaa ka dhigaynaa madow aan ka dhigaynaa. okay, madow aan ka dhigaynaa. meeshaan marka hoos soo deg typography ay ku qoran tahay waatana waa furaysa iyaduna. marka meeshaan waxaa ka dhigtaa iyaduna 600 ka dhig. okay, 600 si dadka isku lahaadaan. meeshaan waa 14, waxaa ka dhigtaa 15 aad ka dhigaysaa iyaduna 15. okay, so waxyaabaha oo dhan marka sidaas ayay hadda markaas isku bedbedelayaan. okay, markii aad sidaas u hagaajiso kaliya waxaa dhahda update. dadka tabletka haystana waa kaasa isaguna sidaas ayay u arkayaan, dadka computerka haystana sidaas ayay u arkayaan. soo marka update dhaho, markii update aad dhahdo meeshaan ay ku qoran tahay preview changes ku dhufo. mar walba wuxuu ku tusaa preview changes markii aad ku dhufato sida markaas website-kaada uu egyahay. soo marka haddii aan ku dhufano calaamadani markaas website-keena, soo sidaas ayuu u egyahay markaas homekii, about us-kii, pageskii, wixii dhammaay sidaas ayay markaas noogu soo baxayaan. soo marka waxaa sameynaysaa, waxaan soo upload garaynaynaa markaan aan u baahannahay footer. soo footerka saan usoo upload garayna waxaan sameynaynaa meeshaas ayaad ku dhufanaysaa website-kaada qaybta backendiga u laabanaysaa. kadibna markaas waxaa sameynaysaa, waxaa ku dhufatayna meesha appearance, kadibna elementary header and footer ayaad ka dooranaysaa. kan waa iska xiraynaa. meeshaan hadda waxaa leedahay add new ayaa leedahay markaasi. add new markaa dhahdo markaan waxaan sameynaynaa footer ayaan u baahnaa maadaama header hore usoo abuuranay. soo meeshaan waa furaysaa, waxaa ka dooranaysaa footer. displaygan waxaa kasii doorataa entire website. meeshan user roleskana all ka dooro. marka intaas aad sameyso waxaa dhahdaa publish. markii publish aad dhahdo marka waxaa ku dhufataa haddana edit with elementary ayaad ku dhufanaysaa. soo edit with elementary markaa ku dhufato meeshaan ayaad furaysaa photo elementskan ku dhufo. kadib meeshaan waa furaysaa view installed kitka, hoosa usoo degaysaa. waxaan u baahanaa markaan footer, waa kana footerka ay ku qoran tahay isaguna. kadib waxaan leenahay insert template aan ku dhufanayna. soo aan sugni inta uu markaas kasoo degayo. soo footerkani waa kaasa sidaas ayuu markaas noogu soo baxay. meeshaan waa ku dhufan kartaa, ku dhufo. kadib meeshaan waxaa sameynaysaa image ka dooro, kadib loogadaada ka dooro. soo loogada hadda waa kana waxaa waaye madow ahaan buluug. soo loogada waxaa laga rabaa marka inay cadaan noqoto. meeshaan waxaa sameynaysaa markaas loogadaada waa soo bedelaysaa hadhowdii. meeshii hadda aan kasoo sameynaynay waad ku laabanaysaa, midabka o dhan cadaanaad kasoo dhiganaysaa. meeshaan waxaa ku qoraysaa markaas qalinka waa ku dhufanaysaa faahfaahin ku saabsan website-kaada. tusaalahaan website-kaada muxuu ku saabsan yahay, kaba soo qaad. halkan waxaan aad ka helaysaa markaas website-keena waa website portfolio aan kusoo bandhigna xirfadaha iyo waxyaabahaan sameyno. soo qoraal sidaas oo kale ayaad markaas ku qoraysaa. meeshaana menuga qalinka ku dhufo. pageskana menuga ku xir website-kaada. homeka oo kale hadda waad furaysaa, meeshaan waxaa ku qortaa home ku qor. homekii waa kaasa ku dhufo. midka kale waa furaysaa, about us aa ku qoraysaa. soo about us waa furaysaa, waa kaasa about us. haddana midka saddexaad fur. meeshaan linkiga iska tir, waxaani waxaa ku qortaa surface ku qor, ayadaa soo boodayso surface ka dooro. midka ku xiga meeshaani waa linkiga waa iska tiraysaa. meeshaan waxaa ku qortaa contact us. soo contact us-kaada fur, waa kaasa. markii intaas aad sameyso meeshaana sidoo kale ku dhuf iyaduna. waxyaabahan uma baahnid marka waxaa iska tirtiraysaa ama copyright ayaad ku bedelaysaa. hal mar meeshaas kore ku dhufo. kadib waxaa meeshaan searching-ka ku qortaa copyright, waa kaasa copyright-ka. soo jiid hal mar inta soo dhig. okay, marka inta soo dhigto tagastigan hore waad ku dhufanay delete iskana midkan. okay, waa kaasa copyright-ka. soo copyright-ka marka inta aad keento sidaas uu u egyahay copyright powered by. soo waxoo dhan waa ka bedbedeli kartaa markaas. copyright 2023 waa current year. website-ka magaciisa powered by, cidda website-kaada power garaysa waxoo dhan waa kaasa. qoraalka sidaa u hagaajiso white ka dhig bis. meeshaan hoose text color-ka furaysaa. soo geeska geynaysaa iyaduna. hal mar haddii aan iska xira calaamadani waa kaasa sidaas oo kusoo baxaa. soo marka soo laabto waxaa sameysaa haddana waxaa ku dhufataa qaybtan sectionkana ku dhufo oo faahfaahinada ku qoran tahay sida emailkaada iyo numberkaada. meeshaana fur marka oo bidixdaada ahan. kadib meeshaan waxaa ka bedelaysaa markaas emailkaada oo keliya waxaa ku qortaa emailka business haddaa ah haysata ama emailkaada shaqsiga ah ku qor. sida aniga hadda waxaan iskaga qoraynaa info@websamayn.com oo kale.
sidoo kale marka waa iska laabaysaa kaaskan ku dhufo si aa phone number u bedesho isaguna meeshaan waxaad gelisaa marka phone numberka aad adigu leedahay geli oo kan iska bedel haddii aadan rabin waxyaabahan dhan calaamadaas closeka ku dhufan kartaa waa iska xiri kartaa iyagoo dhan ama wax kale ayaad ku bedeli kartaa okay marka intaas samayskan xir markii saddexaad social iconskan ku dhufo markii aad ku dhufato twitterka midkaad rabto waa iska bixin kartaa calaamadaas closeka ku dhufanaya add item dheh haddii aad mid cusub rabto dhexda ku dhufo meeshaan waxaa ku qoray marka midka aad rabto haddii aad u baahan tahay oo kale Facebook saas ku dhufo kadib insert dheh waa kaasa Facebook iyo halkaas ayuu kusoo muuqanaa si aad link ugu xirto Facebookana halkaas waxaad soo gelinaysaa linkiga Facebookaada so sidaas ayaa qaybahaas markaas aad u hagaajin kartaa update markii intaas aad samayso meeshas u hooseysa ku dhufo markay responsive mode ku qoran tahay kadibna waxaad ka doorataa mobile dabcan mobileka isaguna waa inaa mar walba sad upgareysaa markii page walba ama qayb walba aad dhisayso okay ha iloobin taasi soo mobileka sidaan ugu soo baxaa qaybta markaas koowaad ee section koowaad soo mobileka markii aad ku dhufato waa kaasa sidaas ayuu kugu soo baxaa marka waxaad sameysaa meeshaas iska laab okay markii aad iska laabto meeshaasi saas ayuu muuqana mobilekaada haddii loogada aad rabto halkaas ka bedel marka computerka nagu soo celi qaybta computerka sidaas ayuu markaas isagu u muuqanaa haddii aad u baahan tahay qayb walba markaas kamid ah inaad bedesho halkaas ama sidaas ayaad markaas ku dhufanaysaa oo aad u bedeli kartaa markii intaas aad sameyso waxaa ku dhufataa meeshan hoose ay ku qoran tahay markaas update ayaa leedahay kadibna waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas markaas ay ku qoran tahay preview changes oo share u eg oo hadday aan soo arkaynay soo marka waxaa arkaysaa sida uu egyahay sidan ayuu kusoo baxaa markaas footerkaadii haddii aad ku dhufato log homeka oo kale wakaasa wuxuu ku dhex geenaa homeka ayuu markaas ku dhex geenaa soo marka stepkani waa kaasa waxaan ku aragnaa sida header iyo footer loo sameeyo kadib waxaan arkaynaa stebyada kana u gudbaynaa sida pageska homeka about us waxoo dhan loo soo import garay soo markaan u gudubno stepka xiga soo stepka sideedaad waxaan ku arkaynaa markaasi sida pageka homeka markaasi loo dhiso so stepkan waxaan ku arkaynaa markaasi pageka homeka iyo page kale markaas sida loo dhiso siyo pageka homeka soo marka si aan pagekan u dhisno aan soo import gareyno waxaad tagtaa marka koowaad qaybta baadgeliga dashboardkaada kusoo laabo markaa kusoo laabato waxaad tagtaa qaybta pages kadibna waxaad kasii doorataa meeshan ay ku qoran tahay all pages aad ku dhufanaysaa so all pages markaa ku dhufatay inta page oo aan soo abuurana waa kuwaana marka pageka aad rabto hadda homeka oo kale ayaan rabnaa inaan dhisno so homeka waxaan leenahay marka meeshaani hoostiisa edit ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa so edit ku dhufo so markii edit aad ku dhufato mar koobaad mar walba waxaad hubaysaa page walba oo markaas inta aadan edit with elementor aadan ku dhufanin oo aadan bilaabin dhisitaankiisa meeshaan ee template ku qoran tahay horteeda inaad ka doorato mar walba elementor full width mid walba ha ku doornaado so hadda waa uu noo dooran yahay marka waxaad sameysaa waxaa ku dhufataa edit with elementor ayaa leedahay kadibna markaas waxaa leedahay continue ayaa leedahay so saa ujeeda marka wuxuuna keenay qaybta markaas wejiga hore ee homeka ayaan dhex taaganahay markaasaan template homeka usoo import gareyno meeshaan ay ku qoran tahay infata elements ayaad ku dhufanaysaa oo soo deg meeshaan ay ku qoran tahay view installed kit ayaad ku dhufanaysaa page walba sida aan soo sheegnay stepka hore header iyo footerka markaan dhisayna page walba ama qayb walba saas ayaa loo soo import gareeyaa soo hadoo kale homeka ayaan raadinaynaa meelaan page home ay ku qoran tahay magaciisa so homeka waa kana pageka ay ku qoran tahay magaciisa so waxaan sameynaynaa homeka saan usoo import gareyna kaliya waxaan leenahay insert template waan sugaynaa marka ilaa iyo inta uu ka gaarayo 100 soo saa ujeeda template sidan ayuu noogu soo baxay oo homeka markaan soo import gareyna haddii aad isla taabato control iyo minus oo markaas aad yareyso qaybta wejiga hore saa ujeeda waa kaas sidaas hadda waa sunka meeshaani 80 ilaa 90 waa ka dhigi kartaa soo hadda 90 haddii aan ka dhigno sidaas oo kale ayuu kaaga dheeraana oo kugu soo baxaa ama haddii kale waxaad sameyn kartaa kan waa iska xiri kartaa template-kaada marka sidaas ayuu kugu soo baxaa oo kaasa marka waxaad sameysaa qaybahan oo dhan markaas waa bedeli kartaa haddii aad rabto inaad tagastigan app dasho oo kale meeshaan waxaad ku qori kartaa markaas kaba soo qaad magacaada oo kale hadda magaca tusaale ahaan waxaan iskaga qoraynaa oo sample ah oo kale ayaan meeshaan iskaga qoraynaa qalin kale ku dhufo tusaale ahaan waxaan iska leenahay geedi oo kale kaba soo qaad geedi meeshaan marka waa bedeli kartaa tagay qoraalkan ku dhufo hello my name is Tyler meesha ay ku qoran tahay Tyler magacaad rabtaa ku bedeli kartaa soo hadda waxaan ku bedeleynaa kaba soo qaad geedi oo kale ayaan iskaga bedeleynaa so waxyaabahan dhan markaas waa bedeli kartaa meeshaan oo kale CV-ga ay ku qoran tahay download CV
qofka CV-giisa oo soo import garaysan ama CV-gaada haddii aad rabto inay arkaan dadkan website-kaada soo booqdo meeshaan linkiga ku xiraysaa. marka linkiga waxaad ku xiri kartaa oo kale kaba soo qaad waxaad gali tab cusub furi kartaa, waxaad tagi kartaa kaba soo qaad Google markaas Drive-ko kale CV-gaada oo kusoo import garaynaya linkiga share-ka waa soo qaadi kartaa, inta waa soo dhigi kartaa, sidaas waa aad samayn kartaa. meeshaan contact me ay ku qoran tahay ku dhuf iyaduna qalinka markaa ku dhufato linkigan ku xiraynaa. linkigan ku xirayna wuxuu noqonaa page-ka markaasi contact. meeshaan contact us waa meeshaan waa inaan ka dhignaa markaasi me. meeshaan hadda asaan dhahnaa annaga, laakiin me waa ka dhigi kartaa hadhow haddii aad markaas keligaa tahay sida hadda meeshaan ku qoran oo kale. qofka markuu button-kan ku dhufto haddii aad rabto inuu midabkiisa isbedelo style aad tagaysaa meeshaan hover ay ku qoran tahay waa kaasa background color waa bedeli kartaa, waxaa ka dhigi kartaa madow oo kale. qofka markuu dul tago madow isku bedelaa waa kaasa, ama haddii kale markaasi midab walbo aad rabto ayaa markaas ku bedeli kartaa. okay midabkan oo kale hadda waa kaasa waa ku bedeli karnaa. okay midabkan oo kale haddii aad rabto marka inaad save garaysato calaamadaas pluska lagu dhuftaa, magaca u baxsa haddaa rabto ama create iskare. okay hadhow markaa rabto inaad midabka bedesho inta lee furaysaa midabkaadi markaas jaalaha waa kaasa halkaas ayuu kasoo baxaa. marka intaas aad samaysato meeshaan waa bedeli kartaa. marka waxyaabahan dhan adiga ayaa fahmaya projectyada sameysay inta awaadiska aad ku guuleysatay clientska waxa u qabtay experience-gaada kale. projectyada sameysay qalin ku dhufo waa 100 hadda meeshaan projectyada sameysay kale waxaa ka dhigi kartaa kaba soo qaad 120 waa dhigi kartaa. okay experience-ga aad leedahay ama waxaan aad u leedahay hadda waa 10 sano waxaad ka dhigi kartaa meeshaan kaba soo qaad 07 oo kale waa dhigi kartaa, 7 oo kale waa iskaga qori kartaa. what I do for my customer meeshaan magacaada waa bedeli kartaa iyaduna maxaan macaamiisheeda u qabtaa. meeshaan shaqooyinkaada kusoo bandhigi kartaa. okay meeshaan haddii aad rabto inaad bedesho qalin ku dhufo meeshaan sawir ku jiro oo ma icon-kaasi waa bedeli kartaa ama sawirkaada waa soo gashan kartaa. meeshaan waa bedeli kartaa title-ka kale, tusaale ahaan waxyaabaha aad qabato kale kaba soo qaad graphic design oo kale waa dhihi kartaa ama wax kale. soo control zadan leenahay sidiisa iskaga dhaafayna. marka waxyaabahan dhan waa sample anaga hadda kama gaarno muuqaalka saad u dheeraana. marka shay walba wax walba waa bedeli kartaa. sawirka koowaad oo kale haddii aad rabto inaad bedesho qalin ku dhufo waa kaasa sawirka inta ku dhufo sawirkan wixii aad rabto markaas ayaad ku bedelinaysaa, ama sawir gudaha aad kasoo qaado kale ayaad ku bedelaysaa. soo marka hadda kan iskaga dhaafayna. haddii aad sawir haysato adigaanahne waad soo geli kartaa inta background kale kasoo jar sawirkaada. soo inta waa kaasa shaqooyinka. marka meelahan bottomyadan oo kale page lagu xiraa meeshaan landmark ay ku qoran tahay oo kale waxaa ku xirtaa about. okay about us oo kale ayaad markaas ku xiraysaa page-kaada about us oo kaasa meeshaas ku soo baxa ku xir. haddii aad rabto inaad qofka markuu dul imaado is bedelo waxaad tagaysaa style, waxaad tagaysaa hover meeshaan colorka ay ku qoran tahay fur meeshaas jaalahaas ka dooro fiir hadda uu is bedelaa. meeshaan marka waa muhiim iyaduna kale waa portfolio ama shaqooyinka aad qabato kale. okay qofka shaqada qabato kale inta kusoo bandhig sawirkan ku dhufo waa bedeli kartaa sawirka waa kaasa sidaas ayaad markaas sawirka aad u bedeli kartaa. control sida leen sidiisa iskaga dhaafana. meeshaan shaqooyinkeeni waa ayaa leedahay see all projects meeshaan ay ku qoran tahay marka waxaa ku xiri kartaa see all projects page-ka loo yaqaano workskan. okay meeshaan hoos soo deg meeshaan see all projects ay ku qoran tahay ku dhufo linkiga aad ku xirayso wuxuu noqonaa hadhow oo kale kaba soo qaad page-ka works ay ku qoran tahay shaqooyinkaada dhan laga arkayo waa kaasa. soo markii intaas aad samayso marka meeshaan haddii aad rabto inaad wax ka bedesho qalinkaas ku dhufo meeshaan item-ka koowaad ay ku qoran tahay waa kaasa qofka sawirkiisa oo kale. haddii kana qofkan oo kale sawirkiisa kusoo daraysaa meesha waa kaasa. okay sawirka meeshaan qofka magaciisa ku qoraysaa maxaa leedahay kaba soo qaad oo kale qofkan waxaa la dhahaa kaba soo qaad cabdi axmed oo kale la dhahaa testimonial-ka uu ka qoray markaas aad markaas meeshaan waxaad ku qoray CEO-ga ama title qofkan wuxuu yahay testimonial-kiisa oo kale ama waxa uu ka sheego oo kale qofkan halkaas ayaad ku qoraysaa. okay item-ka labaad haddii aad rabto sawirka saanaad u wadaysaa markaasi item-ka labaad haddii aad rabto inaad furto waa kaas isaguna sawir waad soo gelin kartaa. okay isaguna sawir waad soo gelin kartaa. item-ka saddexaad haddii aad isaguna rabto waa kaasa sawir waad soo gelin kartaa isaguna. okay sawirka aad doonto ayaad markaas iska soo gelin kartaa. soo marka intaas aad samayso meeshaan clients haddii aad waxaan u baahnayn calaamadan close-ka oo kale ayaad ku dhufanaysaa oo waad iska xiraysaa markaasi oo saasa close u leedahay. marka qaybahan oo dhan sidaas ayaa loo hagaajiyaa wax marka sidaas u adag maaha. haddii aad rabto inaad typography-gan habeeso magacan oo kale ku dhufo qalinka style aad tagaysaa meeshaan typography ku dhufo meeshaan weight-ka oo kale farta waa weyneyn kartaa si fiican loo arko 600 waa ka dhigi kartaa size-keeda waa 16 waa weyneyn kartaa waa kaasa. okay
marka intaas sameyso waxaa ku dhuftaa meeshan responsive mode ay ku qoran tahay kadibna waxaad ka doorataa mobileka dooro mobileka marka kan haddii aan iska xiro oo xoogaa yar aan yaro weyneeyo waa kaasa dadka mobilka haysto sidaan ay ugu soo baxaa okay markay meeshan ku dhuftaan waa kaasa loogadaadii magacaadii contactigii download cv-gii meesha kasoo degsan lahaayeen waa kaasa markaasi sawirkaadii projectyadaadii waxaa dhammaay tahay magacaada customerka waxa aa qabato shaqooyinkaada oo dhan haddii lacala hadda meeshan kaba soo qaad shaqooyinka hal mar inta inoo soo furo shaqooyinkan hadda aa qabato dhan waa 3 taal haddii aad rabto inaad badiso inta imaaw duplicate bas aa leedahay okay duplicate markaa dhahdo fiir hadhow waxaa bedeli kartaa magaca iyo sawirka iyo waxyaabahaas bis aad bedeli kartaa soo mar walba waxaa sameysaa duplicate ayaa dhihi kartaa okay so waa badsan kartaa haddii aad rabto shaqooyin badan aa qabato inta kusii dhufo duplicate dhe sidaas ayaad markaasi aad ku badin kartaa iyaduna soo markaan nagu soo celi responsive mode ku dhufo mobileka hal marna keen marka qeybahan hoose waa kuwaas sidaas u egyihiin okay qeybahan sidaas u egyihiin sawirkan waxoo dhan waa kaas waa bedeli kartaa so all of them waa kuwaas saas ayaad markaas u habeyn kartaa tabletka oo kale isaguna waa muhiim dadka kusoo booqanayo oo kale tabletka sidaas ay markaas isaguna u arkayaan sawirkan oo qoraalkan oo kale ku dhufo meeshaan imaaw alignmentiga center ka dhig kuwaan oo kale ku dhufo center ka dhig waa kuwaas marka saas isaguna u habeyn kartaa tabletka markaasi dadka soo booqanayo markaas ay u arkaan soo marka computerka nagu soo celi marka intaas aad sameyso marka oo pagekan homeka oo dhan saas soo upload gareyso aad wax ka bedbedesho meeshan hoose ku dhufo ee update ku qoran tahay meeshan hoose ku dhufo ee update ku qoran tahay soo shaqadaadii iyo waxyaabahaas markaas aad u save gareysato soo markaas aad update ku dhufato meeshan hoose ay ku qoran tahay markaasi preview changes ku dhufo oo saa u aragto markaas sida uu u egyahay homepageka soo saa ujeeda homepageka sidaas ayaan u dhisnay marka aan u gudubno stebyada xiga iyo qeybaha kale sida page kale lasoo import gareeyo aan aragno iyaduna stepka sagaalaad ahna stepkan ugu dambeeya waxaan ku arki doonaa markaasi sida pageka contact aska iyo paged kale markaasi loosoo import gareeyo soo marka waxaa sameyneysaan si aan markaasi pageka contact aska usoo import gareyno hadda saa ujeedo haddii aan ku dhufano markaasi page contact aska markii aan ku dhufano meeshan edit with elementary ah ma shaqeynayso marka wuxuu rabaa mar walba inaan marka ugu horeysa aan gadaal kasoo galno soo marka waxaad tagtaa qeybta dashboardka ama backendiga ee websitekaada markii aad tagto waxaad tagtaa meeshan ay ku qoran tahay pages ku dhufo soo pages markii aad ku dhufato page contact aska waa kana sidii hadaayo kale waxaan sameyneynaa waxaa ku dhufataa meeshan ay ku qoran tahay edit ku dhufo soo markii edit aa ku dhufato pageka sidaan soo sheegnay mar walba meeshan templateska ay ku qoran tahay horteeda mar walba waxaad hubisaa page walba inuu ku dooran yahay elementary full width haddii kale pageka magaciisa ayaa waxaa arkaysaa markaas ayaad waxaa ka dhex arkaysaa markaasi websitekaada soo marka waxaa hubisaa mar walba inuu elementary full width ku dooran yahay soo marka waxaa dhahdaa update ayaa leedahay markii update aa dhahdo waxaad ku dhufataa marka edit with elementary ku dhufaada soo waa kana marka wuxuuna dhex keenaa page contact aska meeshan ay ku qoran tahay marka infato elements ku dhufo sidoo kale waxaan sameyneynaa waxaa ku dhufataa view installed kit meesha ku qoran tahay ku dhufo marka waxaan raadineynaa hada page contact aska waa kana page contact aska soo waxaa sameysaa kaliya waxaa dhahdaa insert template ku dhufo soo marka insert template aa ku dhufato waa kana pageka markaas contact aska uu ku soo baxaa meelahan xogta markaas waa ka bedbedeli kartaa tusaale ahaan contact aska oo kale ku dhufo meeshan style ku qoran tahay tag haddii aad rabto inaad farta weyneyso meeshan typography aa furaysaa hadda waa 46 waad weyneyn kartaa soo marka intaad sameyso meeshana waa formkii waaye markaasi formkan ku dhufo marka qalinkan aad ku dhufato markaasi qaybta formka ah wuxuu ku dhex keenaa formka soo meeshan waa namekii aa ku haysataa waa magaca meeshan nameka haddii aadan rabin hataa af soomaali waa ku bedeli kartaa waxaad dhihi kartaa magaca ayaad dhihi kartaa oo kaasa meesha kore magaca kasoo muuqday soo waxoo dhan waa bedeli kartaa markaasi namekaan iskaga dhaafeenaa emailka waa kaasa phone numberka waa kaasa haddii aadan rabin kaba soo qaad phone numberka oo kale saasaad u bixinaysaa dileedaa leedahay okay soo mar control z ayaan leenahay now okay meeshana subjectiga waa ciwaanka qofku wuxuu rabo markaas inuu kaala hadlo okay haddii aadan rabin subjectiga waa iska bixinaysaa markaa iska bixiso phone numberka oo kale imaaw meeshan wirsiga balaca waxaa ujeedaa content inay tahay 100 ka dhig okay waa u weynaanaa fiiri marka soo marka waxaan sameyneynaa control z aan leenahay
sideedii aan iskaga dhaafayna. Haddii aad rabtana waa bixin kartaa, balacana waa weyneyn kartaa. Okay, meeshaan waa message ama fariinta. Qoraalkan dhexda ku jiro waxaa la dhahaa placeholder aa la dhahaa, waa bedeli kartaa oo mar walba waxaad rabtaa ku qori kartaa fariinta aad leedahay oo kale kaba soo qaad, halkaas ayaad markaas ku qor leedahay. So marka waa iska dhaafayna intaasi. Okay, marka intaas sameyso meeshaas iska xir form fields ay ku qoran tahay. So form fields markaa xirto waxaa sameysaa, waxaa ku dhuftaa meeshaan email ay ku qoran tahay. Emailka meeshaan ayaa ku socotaa, waa cidda ay ku socoto adigay kugu socotaa. Waxaa rabtaa fariintan qofka markuu diro in adiga kuu soo dhacdo, marka meeshaan waxaa gelisaa emailkaada gelinaysaa. Laakiin markii WordPresska aad soo degsanayso automatic ahaan isaga ayaa markaas wuxuu u wataabo emailkaada ayuu u qaadanaa automatic ahaan. Qofka adminka website-ka maamul emailkiisa asaa automatic ahaan ugu xiraayo. Marka emailkaada geli, ana hadda emailkan oo kale saas u gelinaysaa subjectiga. Markii emailka ama contact askan qofka fariin uu kuu soo diro ee kuu soo dhacdo, subject maxaa rabtaa inay noqoto si marka aad u fahanto. Waxaa dhahdaa new message from website-kaada magaciisa oo kale, fariin cusub ee waxaa leedahay ka timaada markaasi website-keeda, soo qofka markaas uu ogaado. Saa markaas aad hadhow si fiican macnaha aad u fahanto fariintan meesha ka timaaday. So meeshaan stable setting ay ku qoran tahay waa iska dhaafaysaa. Additional options waa kana waa sameynaysaa. Custom message waaye, qofka markuu fariinta uu diro waxaa u soo baxayso the form was sent successfully, formkani waa aad dirtay. Marka af Soomaali waa ku bedeli kartaa. Error markuu dhaco, error dhacay waa bedeli kartaa. Required fill message markii meel ka mid ah uu ka tago waxaa dhici kartaa waa loo baahan yahay. So hadda marka saa ujeedo, haddii aan iska xiratan calaamadan name-ka oo kale waa required, calaamad gaduudan saaran. Emailka waa loo baahan yahay. Haddii aad rabto phone number-kan inaad khasab ka dhigto waxaa sameynaysaa form fields-ka ee kore ayaad furaysaa. Okay, form fields-ka markii aad furto meesha phone number-ka waa tana. Meeshaan phone number-ka required waa ujeedaa. So hadda waa off, waxaad dhihi kartaa on ayaad dhihi kartaa. So calaamad gaduud ayaa saarmaysa saa ujeedo. Haddii aad rabto subject-iga oo kale waa kana iyaduna hadda wax ma saaran. Haddii aad rabto inaad khasab ka dhigto ama message-ka oo kale fariinta oo kale khasab waa inaad ka dhigtaa mar walba. So fariintan waxaa leedahay meeshaan required-ka iyada on ayaa leedahay. So muhiim waaye tan oo kale. So marka intaas aad sameyso wax kale oo meeshaan muhiim oo markaas laga bedelaa ma jirto. Qaybtan oo kale haddan khasab baa inaad bedbedesho iyaduna waa ku dhufanaysaa qalinka. Meeshaan waa xayaala markaasi emailkaada ku qor. Meeshaan waxaa ku qortaa phone number-kaada ku qor. Intan address-kaada, haddii aadan address-kaada rabin inaad qorto waa iska bixin kartaa. Haddii aad rabto inaad phone number-ka laba jeer qorto duplicate aad dhigi kartaa phone number-kaada. Okay, so marka intaas sameyso text-igana waa bedeli kartaa isaguna qoraalka. Meeshaan contact ay ku qoran tahay waxaad dhihi kartaa kaba soo qaad contact me oo kale ayaad dhihi kartaa. Style aad tagi kartaa. Meeshaan typographic oo kale waxaa ka dhigi kartaa 600 ka dhigi kartaa. Fartan waa weyneyn kartaa markaas. Okay, so marka intaas sameyso update shaqadaada si aad u save garaysato. Markii update aad dhahdo meeshaan responsive mode ay ku qoran tahay fur. Kadibna waxaa dhahdaa mobile-ka dooro. So mobile-ka markii aad ka doorato dabcan isaguna waa kaas sidaas ayuu kugu soo baxaa. Okay, contact us-ka wuxuu dhan. Okay, hal mid marka aan sameynayna formamkaani fartooda aad laguma jeedo. Hal mar nagu soo celi qaybtan forms-ka. Waxaa ku dhuftaa qalinkaas ku dhufo. Kadib waxaana keentaa meeshaan ay ku qoran tahay style-kan. Meeshaan waxaan ku haysanaa formka. Text color-ka formka aad laguma jeedo. Waxaan ka dhigaynaa blue aan ka dhigaynaa. Typographic-gooda kalena waxaan ka dhigaynaa 600. So hadda si fiican ayaa markaasi loogu jeedaa. So marka sidaas oo kale waa sameyn kartaa. Qaybtan field-iga oo kale iyaduna text color-ka waxaa ka dhigi kartaa black ka dhigi kartaa. Meeshaan weight-ka waa furaysaa 600 ayaad ka dhigi kartaa si ay wax oo dhan markaas isku lahaadaan. Okay, marka waxaana keentaa midkaanina keen mobile-ka. So waa kaas isaguna sidaas ayuu u egyahay. Bottom-kan haddii aad rabto inaad bedesho waxaa sameysaa inta iska xir. Meeshaan bottom-ka waa furaysaa iyaduna. Qofku markuu dul imaado kale hover color-ka waa bedeli kartaa. Waxaad dhigi kartaa kaba soo qaad background color-ka oo kale saanan ka dhigayna. Qofku markuu bedelo saas ayuu isku bedelaa markuu dul imaado. Okay, waxaa kaloo sameyn kartaa qaybtan section-kan wirtigan saaid u weyn yahay. Marka meeshaas ku dhufo, markii aad ku dhufato meeshaani saaid ayay u dheer tahay. Waxaa sameysaa ama haddii kale layout-ka adigoo joogo meesha minimum height-ka waa 380. waxaa ka dhigi kartaa kaba soo qaad 230 oo kale waa ka dhigi kartaa. Ama haddii kale iska tir meeshaan minimum height-ka waxaa ka dhigtaa 270 oo kale. Okay, so saaid u weynaan markaasi hadda waa u roon yahay. Haddii aan mobile ahaan aan tagnane
ku dhufo qalinkaas. Markii aad ku dhufato meesha minimum height-ka waa kana isaguna waxaa ka dhigtaa 270 ka dhigaysaa. Okay, ama haddii aad rabto 250 xitaa waa ka dhigi kartaa. soo hadda haddii aan iska xirno sidaas ayuu kusoo baxa. waa u yaraad marka hore waa u dheeraay, space badan ayuu nagu cunaya. Okay, haddii aad rabtana sidoo kale meeshani kaba soo qaad markii aan iska xirna kan ama oo mobile ahaan aan tagno, labada meel hoosta iska galayaan, footerka iyo bottomkan hoosta iskaga jiraan. haddii aad rabto inaad kala dheereyso waxaa sameysaa, waxaa ku dhufataa columnkan ku dhufo, meeshan advanced imaw, inta tigta ka qaad, meeshan bottomka ah oo kale waxaa dhigtaa 30 oo kale ayaad dhigaysaa. soo hadda fiiri labadooda marka waxaa hadda ka dhexeeya hadda labadooda space ayaa u dhexeeya. soo marka 30 haddii ay yar tahay waxaa kasii dhigi kartaa kaba soo qaad 70 oo kale waa ka dhigi kartaa. hadda marka haddii aan iska xiro saa u jeeda space weyn meesha u dhexeeyo bottomka iyo markaas footerka. soo marka intaas samee shaqadaada, waxyaabahan iska xir, update dha markaasi. update markii aad dhahdo meeshan preview changes ku qorantaa ku dhufo. soo marka page-kani contact us waa kaasa sidaas markii isaguna aan u hagaajino page walba marka saas u hagaajin kartaa oo u soo dhis kartaa. page-kan oo dhanka ma gaaran oo waqtiga muuqaalka ayaa dheeraanayo, process-kana waa same, waa isku mid. soo hadda kaba soo qaad haddii aan imaano qaybta backending aan imaano oo aan ku dhufano pages oo kale aan ku dhufano, page-ka haddii aad rabto kale kaba soo qaad pricing inaad soo upload gareyso, edit dheh. marka edit aad dhahdo waxaad u hubisaa si lamid ah isaguna markaasi. marka edit dhahdo waxaa hubisaa meeshan template hortiisa ah ayaad furaysaa. meeshan waxaa hubisaa inay markaas elementary folders ku dooran tahay, update dheh. marka aad doorato kadibna edit with elementary ku dhufo, kan naga bixi iska xirayna. soo marka ku dhufato inta ku keena envato ka dooro calaamadda envato waatana. okay, hoos soo deg meeshan view installed kit ee ku qorantaa ku dhufo. hadda waxaa raadiysaa marka page-ka pricing oo kale waa kana soo pricing ee ku qorantaa kaliya waxaa dhahdaa markaas insert template. soo saa u jeeda marka waa kana pricing-kii sidaan ayuu noogu soo baxay. meelahan marka qayb walba waa ka bedeli kartaa sidii hadda aan soo sheegayno kale. marka update aad leedahay page walbana marka waxaa sameysaa qaabkan ayaad markaas usoo import garaynaysaa, ama sidaan ayaad markaasi aad import aad usoo leedahay page walba ama qayb walba markaasi aad rabto. marka muuqaalkani intaan ayaan kusoo ekeenaynaa oo ahaa markaas sida loo sameeyo portfolio website. dabcan haddii aad u baahan tahay template-kan iyo elementary pro ayaa kamid ah waxyaabaha markaas requirements-ka ah ee markaas aad u baahnaan doonto inta aad website-kan dhisayso. labadoodaba website-keena waa ka helaysaa, ama shirkadihii aan sheegno elementary waa kasoo dhex iibsan kartaa, ama template-kana sidoo kale envato waa kasoo dhex iibsan kartaa. haddii aad website-kan ka dhex iibsatana labadooda mid kamid ah waxaad ku helaysaa free, mid le u baahan tahay markaas inaad iibsato. soo marka inta aad dhisayso website-ka noocan oo kale haddii markaas aad wax su-aalaha qabto ama markaas meelo gaar ah ay kugu adkaadaan ama markaas aad fahmayso dabcan waa nasoo weydiin kartaa. sidoo kale markaasina haddii aad u baahan tahay website-kan oo kale in lagu dhiso ama website-yo kale markaas la xiriiro iyadana sidoo kale markaas waa nala soo xiriiri kartaa. soo muuqaalkeena xigay markaas khayr badan.